deegaanada Baysaare iyo Kaxda oo simaada degmada Baki ee gobolka Awdal ayay ku dhufteen abaaro baani kuwaas oo saameyn ku yeeshay iyo dunyadii ku noolay deegaankaasi. Dadka deegaankaasi ayaa baaq u diray madaxda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamka isla markaasina ka codsaday inay la soo gaadhaan gargaar degdeg ah. Odayaasha deegaankani oo ka hadlaya abaaraha ku dhuftay deegaankaasi sheegay sida mana aragno hay'adaha samafalka kuwa biyaha ma aragno kuwa caafimaadkana ma aragno kuwa deeqda bixiyana ma aragno. inta maanta waxaan rabnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa dadweynaha iyo dheergarka waxaan ka codsanaynaa sidii loogu baaqi lahaa dadka dhimanayo loogu baaqi lahaa kuwii beeraha la beeraha way ka guureen kuwii barsala bartii way ka tageen oo barsa cid lahayd waxa weey naf ku nool nafti markay baqtay nafti kale way baqtay gidaaradu wada yaala dad iyo diirba gidaarada la wada yaala birta xumaatay baa la yiraahdaa geerashka la dhigay dadkii geerashka la dhigay xoolaha sidaa waxaan ugu codsanaynaa u diraynaa dadka madaxda dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka iyo dheergaradka dadka gobolada barasaabka gudoomiyaasha xildhibaanada inta oo dhanba waan codsanaynaa in dadka ku qayliyaan dadka inay u qayliyaan baan doonaynaa horta dariiqyadu ma kolkay siyaasada timaade ee food iyo wax leereeyeen iyo xildhibaan iyo xisariyaan bay banaan yihiin kolka kala miyay oodmaan ma garba ka dilaacda ma buuraa ku dumay maxay u jeedaa xukuumaddu dadkayga miyaan arkaynin sawtan diiwaan galiya sheegsan xabal diiwaan dad ma lama hayee inta xukuumaddan u sheeganaa inta xukuumadda iyaan u sheeganaa waxa baad u diraynaa gorba joogta u dhalatay dalka u dhalatay beeraha bariga aan ka hadlayno gorba joogta u dhalatay aabahood hooyadood walaalkood odaygooga inama arruurtooda meesha ay ku dayacantay ku gaajoonaysan iyaan baaq u diraynaa si kastaba haatee roobabka guuga oo sanadkani ka diin guud ahaan gobolka Awdal ayaa loo aaneynaya inay sababeen abaaraha ku dhuftay guud ahaan deegaankaasi. Qayladhaantani ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha dalka uu safar dowlad siyaasadeed ku marayo gobolada bariga Soomaaliland. Qadar Maxamed Xasan Laba Qaydle, TV-ga caalamiga SOM News, Boorama.